يو مركز جوجت هير لو واضح برشة وحاس بدل دون صاحب أرتدت كاخبين وحاس بدل دون مقع عددك وعجرة أول هدي كله هجرة صاحب أرضي حد لكن كم الله إنه وحقله دونان أخويانك وحقله دونان جامعي جينا سادرت مرك صاحب حلو به درجات أتتكس كويشتين أرتدت مرك سنتت كاهستان إن أديك أي لسد أدون قاف كست وحول أشوف حتى قيمية سادرت مرك سي قيمة أول شيء وعبان تعدنا إن أزبدل أسمسيت دخن كاغي يو شخص ده ناس مس أزبدل أد بلارن هدي أول دخل جرت سي سكولي عمل هذا لكن ملودن وحلا دون صاحب ناس مس أزبدل كلنا سرت واحد ما تدنت كوا wax bari saameynta ku yeeldoon aad baynu ku miisantaa midaas saadarta marka saxib waxaan jeclaystay inta ku jirtay heerka labaad xayaanka waxbarashada inaan kula wadaago videoan saameyn ayuu ku yeeli doonaa xilliga ku jirtid xayaanka waxbarashada heerka labaad intaan ku wadaagan karo saxib janaalka diga ku subta subscribe sar hadii aad horuujigto waxa aad ka mahadnaqayaa sida qurux badan janaalka horumarkiisa nolol qayb qaadatay laakiin nagu dhiirigay shartan saxibka ku gaarsiin in ka saxib aan kula wadaagay waxa aad ku caaminayso fahanka semester 1 ilaa semester 3 iyo natiijada imtixaankaada sababtoo ku caaminayso waxay tahay hadii aan qormano fahanku wuxuu ka caawinayaa inaad fahamtid qaabka casharada u baxayaan waa muhiim hadii inaad fahamtid qaabka casharada u baxayaan ee qaabka loo baahan yahay in markaas aad soo diyaariso qaabka macallimiinta kugu sharxayaan sambal hadii aad tahay IT qalad programka semester 1 ab semester 3 waxa lagu barayaa asaaska iyo koodka bilawga ah saadarta marka hadhow koodka weyn sida Java iyo waxyaabo noocaas camal PHP iyo ula qabsadid saadarta marka waa muhiim in aad fahantid casharada iyo macallimiinta iyo ardayda kugu haboon in aad jaamacad hadhow waxa ma doonto xilli assignment la shaqeynaa homework iyo waxyaabo noocaas ah qodobka labaad imtixaanka fikradkana doortay in aad la jaan qaadi kartid in aadan la jaan qaadi karin waa meesha kaliya ku ogaad doontid waxay noqon doontaa imtixaanada saadarta marka hadii natiijooyinka imtixaanka semester 1 ilaa semester 3 uu yahay mid aad u sareeyo ogow saaxib waxa markaas tahay qof fikradka oo doortay u qalma kana baxsan kara hadii laakiin semester 1 up to semester 3 imtixaanka natiijooyinkiisa uu hooseeyo ogow saaxib chance ay hoosta ku bedel karta kuliyadaas kuma haboona kamana soo baxsan kartid waa bedel kartaa oo chance hadda ay u haysataa labo warqadaha lacag bixinta saaxib sida ognahay ama hadii aad ogtahay ama hadii aadan ogeyn saaxib waxa jira jaamacado qaar oo u furan business jaamacadaasna ogow mar bixirayaan qaab income ay ku soo gali karaan jaamacadooda qaab dakhli ay ku soo xareey karaan dakhliga qofka laga soo xareeyna qof kale maan adiga waay sida darteed marka waxa loo baahan qaab laga soo xareey qaabka laga soo xareeyna waxay noqon doontaa shabaq taasoo kamid ah bil soo dhaaftay in lagu dhaho lacagteed ma aad dhiibin hadii aad dhahdid waa dhiibsan waa ku doodid ogow waxa lagu dhahayaa cadeenkeen cadeemaas hadaali imaawad oo warqadaan ay yihiin hadaali imaawaasi markaas waxay ku imaanaysaa saaxib in waalidka la waco waalidka wuxuu ku arkaa qof lacagta la dhumi jiray saadartay marka waalidka aadna isku dhacsan ayna waalidka lacag qaadan ileen waalidku hadan u ah cubudkiisa inuu barto ayna hadan u ah in income soo gal saadartay laba waqti ay wax ka qaadan saasoo kale ileen shabaq la daadi waa shabaq laga fiirsado waayo wuxuu ogyiin ardayda inay yihiin laaya ama kuwa aan wax xafidin saadartay marka shabaqani arday badan ay lu tijaabiya boqolkiiba 10 markii loo tijaabiyo 5 kamid oo ku soo dhacaysa hubaal waay saadartay marka hadda ka fiijinaa inta wax barashay xilli jaamacad ku jirtid warqada cadeynaysa in lacag bixisay waa muhiim inaad guriga ku xariisato meel fiican aad dhigato si hadhow markii loo weydiiyo arrimahaasi oo la sbaxday saddex buuga qalin jibinta xilliga jaamacada ku jirtid aad ku sameeynaa sababtoo ah buugaas waxa saaran 100 pound ilaa 60 pound 100 pound ilaa 60 pound si natiijada sare u kacdo wuu ku anfacaya buugaas saameyntaas ku yeelan doona waxa muhiim ah in hadda ka taxtirtid hadii ardayda wax la qabanaysa ala qabatid hadii ay noqonayso in dhanka wax darsi soo diyaarsid waana muhiim in buugaas wax un ka qortid waxna ka fahansanaatid hawaayo hadhow waxa loo weydiin doonaa su'aalaas waxa la baahan saaxib si kalsooni leh na ugu jawaabto waana muhiim in aad macallin la doodo inta buugan difaacanaysid hadii macallin la doodid waxa waay doontaa buundooyin qaar kamid ah afar sheetka xilliga aad ku jirtid waxbarashadaani waxa caadi iska ah haddana ogaanaysaa in caadi ku noqon doonto sheetka waa muhiim in aad ogaato midaas waxa ku soo wajihi doona saaxib faqri arday iyo faqri waa isla socdaan ayaa la raac saadarta markuu ogow sheetku saameyn weyn ayuu ku yeelan doonaa ileen hadii aad doonaysid maanta arday saaxiibadaada ama macallimiin aad wada fariisataan waxa u baahan meesha la wada fariisanayo qarash waana ku muhiim in aad la fariisato macallimiintaada ama ardayda saaxiibadaada saadarta marka waxa kale oo qarash ku imaanaya barnaamijyo soo boodaysa lacag laga baahan yahay faqriga waxbarashada isla socdaan saadarta marka waa muhiim in aad ka walwalin faqriga waana muhiim in aad ka sii baaran degtid xilliga jaamacad aad raasatid shaqooyin yar oo markaas dakhli ka soo caro saameynta ugu weyn inta jaamacadu dhiganaysa waxa ku yeeli doona shahaadada natiijada ku soo baxayso hadii shahaadada natiijada ay yar tahay dibadna waxbarasho ma kartid dalna wax ku meelay shaqooyin sababtoo ah waa shahaadada waa wehelkaagi sidaa darteed marka wehelkaagi haduu daciif yahay ama haduu liito wehelkaagiba qof ku shaqaaleysiinaysa malaha sidaa darteed marka waa muhiim in shahaadada natiijada ay noqoto mid high level ah hadda waxa jaan u haystaa
inaad qashimaysid ama inaad si adag u shaqaysid ogow si kasta aad si adag u shaqaysid oo hard worker aad ku noqoto xilliga waxbarasho ku jirtid kama maari doontid qashka sidaa darteed marka kabtan hashan igo hard work am dadaalka aad samaynaysid wuxuu qeexayaa awoodda aqoontaada balse ogow qashku wuxuu qiimo u doonaa shahaadada sidaa darteed marka qashku kama maarmi doontid haddaan chance u haysataa qashka aad maad u maasantaa waqtiga qaali intaan oo in basic aan jeclaystay inaan kula wadaago haddii aad channel ku cusub tahay subscribe noo saar laabtan noo dhiirgelay shartan saaxiibka u gaarsi haddii aad roo joogtayna aad baad u maasantahay qaab quruxda badan oo isbeddelka channel ku sameeyay adigoo qayb weyn ka ah